kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel walbo dunida dacaladeeda ka joogtaan kusoo dhawaada boggeena YouTube ee wararka 24 online iyo sidoo kale boggeena Facebook ee Kabtan Caduun laan wadaalaba ka daawataan wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo sidoo kale xaaladda colaadeed ee ka taagan magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud. Barnaamijkeena intaynu u gudbin daawadayaal muuqaalkeena like inoo saar sidoo kalena u share garee asxaabtaada kuma hasanid sidoo kalena haddii ay tahay markii kugu horeysay boggeena YouTube na hilmaam inaad subscribe saaratid gambaleelkana furatid si ay kugu soo dhacaan xogihii ugu dambeeyay oo xaqiiqo ah kuwaasi oo aynu soo tifitirnay kuma hasanid. barnaamijkana waxaad ku daawan doontaan daawadayaal xogihii ugu dambeeyay magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud oo marti gelinaysa maalintii saddexaad dagaal kharaar oo u dhaxeeya ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa Galmudug oo garab ah iyo sidoo kale ciidanka xaqudurka ee culimada diinka Ahlusunna wal Jamaa. dagaalka maanta ayaa waxa uu dhacay mid si aan caadi ahayn waxaana jira khasaaro dhimasho iyo dhaawacba leh. sidoo kalena daawadayaal ciidanka qaybta 27aad ee ka soo tagay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sameynayaan xasuuq aan qabiil ah iyagoo oo bartilmaameedsanaya dhalinyarada beesha cayr iyo sidoo kale shacabkii ku sugnaa magaalada Guriceel ee aan dagaalka qayb ka ahayn. 20 qof ayay toogteen intii ay ku jireen dagaalka iyagoo u aaraya ama ka wada aanaysi qabiil oo u dhaxeeya beelaha cayr iyo xawaadle. sidoo kalena daawadayaal xasuuqa Guriceel ayaa gali doona taariikhda waxaana lagula xisaabtami doonaa mas'uuliyiin waaweyn oo ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya kuwaas oo ugu horeeya madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Farmaajo, taliyihiisa amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor. dhanka kalena daawadayaal waxaa jira in dhaawacii taliyihii booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qoroole oo soo cuslaaday isagana loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. sidoo kalena daawadayaal militariga Soomaaliya ayaa dagaalka hadda ka soconaya magaalada Guriceel maalintii saddexaad si xun loogu jabiyay. waxaa jira dhaawacyo saraakiil caan ah soo gaartay taliyihii howlgelinta ciidamada Haramcad ee deegaanada Galmudug ayaa ku dhaawacmay dagaalka. sidoo kalena daawadayaal waxaa jira goobo waaweyn oo ay qabsadeen ciidamada Ahlusunna wal Jamaa. guud ahaan gacan ku haynta Guriceel ayaa ku jirta magaalada Guriceel. qofkii yaqaan ayaa yaqaan magaalada Guriceel waxa ugu weyn xaafadaha waqooyi waxaana iminka ku sugan ciidanka Ahlusunna wal Jamaa. ciidankii militariga Soomaaliya ayaa waxa ay noqdeen wax ku laabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug iyo xoogaa kooban oo ku soo hara xaafadaha koonfureed ee magaalada kuwaas oo si dhuumaalaysi ah ku jooga waxa ayna soo tuurayaan hoobiyaha. laamiga dhexe ee magaalada Guriceel ayaa waxa soo gaaray ciidanka Ahlusunna wal Jamaa. gurmadiyadii ugu waaweynaa ayaa soo gaaray ciidamada Ahlusunna wal Jamaa. daawadayaal dagaalka magaalada Guriceel ayaa galay maalintii saddexaad waxa uuna qarxay dagaalku abaar hal saac oo subaxnimo. waxa uu dagaalku u dhaxeeya ciidamada xaqudurka ee Ahlusunna wal Jamaa iyo ciidamada huwanta ah ee duulaanka ku ah shacabka reer Guriceel. dagaalka ayaa xooggiisu waxa uu ka dhacay maanta jihooyin kala duwan aaga guriga ugaaska jaamacadaha iyo sidoo kale xaafadaha ku yaala jihada koonfureed. inta uusan dagaalku bilaaban waxay ciidamada Ahlusunna uu fadhigoodu inta badan ahaa magaalada Guriceel gaar ahaan xaafadaha waqooyi. ciidanka Qoorqoor ee huwanta ahina waxay fariisinkooda ugu weyn ahaa aaga guriga ugaaska waxa ayna soo qaadeen weerar ciidamada Ahlusunna oo gurmadiyadii ugu badnaa xalay iyo shalay helay ayaa u jirib dhigay waxaana ciidamada huwanta ah loogu daatay difaaciyadoodii ugu waaweynaa ee ku yaalay dhabarka dambe ee guriga ugaaska. khasaaraha dagaalka maanta ayaa ah mid tirabeel ah labada dhinacba waxaana ciidamada Qoorqoor dagaalka ay ku waayeen 20 askari oo ay ku jiraan 5 sarkaal oo caan ah oo ka mid yahay taliyihii howlgelinta ciidanka Haramcad Labi Xidigle Mustaf Ducaysane oo dhaawac culus uu ka soo gaaray dagaalka. dhanka kalena daawadayaal waxaa laga gubay ciidanka huwanta ah 2 gaari oo cabdibile ah oo ay lahaayeen ciidamada ururka 15aad ee uu Generaal Mas'uud hogaaminayay. waxaana ay wariyaasha been abuurka u faafiyay ay soo daabaceen in baabuurta ciidamada huwanta ah laga gubay laga qabsaday culimada diinka Ahlusunna wal Jamaa. balse shacabka Soomaaliyeed oo aan la marin habaabin karin ayaa soo helay muuqaal iyo cadeymo baabuurtaasi inay leeyihiin ciidanka Generaal Mas'uud oo lagu arkay baabuurtaas iyagoo dhex maraya magaalada Guriceel ayna saaran yihiin ciidanka Generaal Mas'uud. sidoo kalena cadeymaha la helay ayaa in baabuurta afka hore uu xariga uga xiran yahay taasina ay cadeyn u tahay in baabuur la soo jiiday ay tahay oo la gubay. dhanka kalena daawadayaal dagaalka maanta oo socday 5 saacadood oo xiira ayaa si xun loogu jabiyay ciidamada huwanta ah waxaana jira khilaaf soo kala dhex galay hoggaanka ciidanka huwanta ah waxaana ciidamadii ugu badnaa ee laga laayay taliyaasha iyo saraakiisha howlgelin lahayd ay dib ugu laabteen magaalada Dhuusamareeb. dhanka kalena daawadayaal ciidamada huwanta ayaa haatan Guriceel kaga sugan jihada koonfureed oo kaliya iyaga oo ku dhuumaalaysanaya xaafadaha dad shacab ay ku nool yihiin. guutooyinka Ansaaru Sunna iyo Al-Ashcariya oo dagaalka maanta wacdar cajiib ah dhigay ayaa ballan qaaday inaysan ka hari doonin xogaaga yar ee ku harsan xaafadaha koonfureed ee magaalada Guriceel. dhanka kalena daawadayaal ciidamadii Hirshabeelle ee fadhigoodu ahaa magaalada Beledweyne oo qayb ka ah dagaalka ka soconaya Guriceel ayaa gumaad ku haya dadka rayidka ah iyagoo dilay ilaa 20 qof. ciidankan oo u badan beesha xawaadle ayaa si aanaysi qabiil ah u laynaya shacabkii beesha cayr ee Guriceel ku sugnaa
xoga aynu ka helnay dhankaas iyo Dhuusamareebna daawadayaal waxa ay sheegayaan in isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusamareeb lagu arkayo ciidamo fara badan oo xirtay saraakiil caafimaad iyo goobjoogayaal ayaa sheegay in dhaawaca taliyihii booliiska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Qoroole uu soo cuslaaday loona qaadi doono magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ciidanka ayaa hadda diyaarad ka saaray Qoroole garoonka Dhuusamareeb Allah caafiyo ayaynu leeyahay taliye Farxaan Maxamuud Qoroole gurmadyo ciidan oo caaboon ayaana soo gaaray ciidanka Ahlus Sunna wal Jamaa iyo ciidankaasi ayaa ka yimaaday dhanka Xiraale ama beesha direed waxayna fariisin ka sameysteen aaga jaamacadaha oo lagu hayo 20 askari oo dhaawacayna ku jiraan 5 sargaal oo caan ah guud ahaan wadayaal xaaladda magaalada Guriceel ayaa haatan mid qasan waxaana dagaalka iminka ku gacan saray ciidamada culamaa diinka Ahlus Sunna wal Jamaa guud ahaan qaybta waqooyi magaalada Guriceel oo ah qaybta ugu badan ee magaalada waxa haysta ciidanka Ahlus Sunna wal Jamaa ciidanka dawladda iyo huwanta ayaa iyaguna waxa ay ka dagaalamayaan dhanka koonfureed oo ay kaga sugan yihiin goobo cayiman oo kooban waxaana dagaalku iminka madaxa la sii galaya xilli casar ah ama duhur ah sida Soomaalidu u taqaan waxaana lagu kala bixi doonaa dagaalkan saacadaha soo aadan ee maantay waxaana fiidkii la rajeynaya in dagaalka labada qolo ay ciidanka Ahlus Sunna ku gacan sareyn doonaan sidaasina lagu la wareegi doona magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ciidanka Ahlus Sunna wal Jamaa ayaa iyagu kuwa dhiiran waxa ayna ka dagaalamayaan inta badan magaalada Guriceel waxaana soo gaariyay gurmadyadii ugu dambeeyay iyadoo dhaawacyada ciidanka Ahlus Sunna ee maanta loo soo qaaday magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug wixii culusna waxa loo soo qaadayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya daawadayaal xogihii ugu dambeeyay barnaamijyadana dambe ayaad ku daawan doontaan muuqaalkana inoo share gareeya lana wadaaga asxaabtiina ku mahadsanidin